يونس صرت وحرة وحقا تاريخ ذا إنا ندبك وعليو يونس وحد كسو عم بحذي تلفزيون كهول قالي جيري هرقيسة آيات ورركا في إنجليزي آيات صوتو بنجرتي كل عبارنا هرقيسة واتسو جوكتي مالين دويت هشيسكي الأحمري مصبيحي إيو أبي أحمد أو قيادة بدن دليل أن محاك قبته ما في لنا يصير such a move. Somaliland أنا واحد كم إذا بتجيبوا ريكا أساسي شبكة ورارو أفقارات كهذا الشيء. قبلهم ب ديجانا الصومالي ذا متشرين وكالة أما التلفزيون كهذا الشيء في إنجليز. wararka ku tabisa af Ingiriis dhamaan gobaha Soomaaliyeed joogto Somaliland kamid tahay marka muddadii aan joogay maadaama aan hoos imaanaynay wasaaradda warfaafinta ee Somaliland waxa jiray waxyaabo xadiday waxa kamid ah inkastoo dadku daawanaya Soomaali yihiin haddana mudnaanta koowaad waa in asisa Soomaalida Somaliland marka warka ugu horeeya iyo kan labaad iyo kan saddexaad mar walba waa inay noqdaan maaha war dhuusamarab ka dhacay warkiismaayo ka dhacay kastoo Soomaali dadku ay wada yihiin tabinteedu waxay u badnayd in gudaha Somaliland taana waxay fursad u noqotay in Somaliland dunidii ay xogteedii oo af Ingiriisi ay hesho sida hadda in Nairobi joogo kala hadii Somaliland waxa uga baahdo fursad ay u siinaysa marka muddada halka aan joogay waraysiid aan la yeeshay madaxda halka haday noqdaan mucaaradka haday noqdaan dhanka maxaafidka tani waaga wali Muuse Bixin baa talada hayay kulligood ka goonayd gooni sutaaga anaga daftarkayga way saameysay tabinta wararkayga oo kale warbixin waxa jirta aan ka sameeyay beer la yiraahdo beerta ayaan daran beerta siyaad barreeba magaca ka bedelay markii dambe ayaan badan buu bixiyay sida loo samareeb oo farmaajo ugu bixiyay samareeb marka beerta wuxuu ku taalaa xadkaas Itoobiya iyo Somaliland warkaasaan ku sheegay aniga laakiin hadda ninka Soomaaliga wuxuu dhahayaa waa xadkii Itoobiya iyo Soomaaliya laakiin way saameysay maadaama ay ahayd dadku waxay aaminsanayeen saxaafaddu waxay mar walba tabisaa rabitaanka dadka way marka go'aankan laakiin heshiiska hadda weydiisay Abiy Ahmed waa mid maaragtay adduunka dhan ka wada yaabiyay oo waliba abuuri kara qalalaaso amni xasuus mudan in markii arrin noocan oo kale ay dhacday 2005 oo ay xabashidii Soomaaliya soo galeen iyagoo waliba ku yimi rabitaanka dawladda waliba hadda Itoobiya wuxuu ku iman kartaa rabitaanka Somaliland laakiin qalalaaso weyn baa ka abuurmi kara Itoobiya maalintay soo galaysay Soomaaliya heshiis bay ku timi kumaysan imaanin waloo ogolaanshay ku timi oo taageero dawladdu u haysay kamid sida ay ku joogaan ciidamada AMISOM ciidamada ATMIS Uganda iyo Burundi iyo kulligood waxay ku joogaan heshiis dawladda ayaa u ogol marka haddii xitaa Somaliland sidaas oo kale ay samayso wali waxa dhici kara dagaal ka weyn kii Soomaaliya 2005 ka dhacay oo burbur badan maaragtay u seeday oo la hadda ay ka soo kicilaadahay oo ay kamid tahay wadamada hadda markaad fiiriso peacekeeping mission ka Soomaaliya oo kale waa meesha ugu dhimasha badan dunida ay amaan laga raadiyay wadan kale dunida oo amaan saraakiil ciidamada Kenya oo kale Sierra Leone baa loo diray wadamada South Sudan bay kamid ahayd meelaha amaanka laga laakiin adduunka oo dhan marka hadda la eego meesha ugu dhimasho badan ee dad amaan raadinaya u tageen peacekeeping mission authorized by the UN Security Council waa Soomaaliya Haiti ka basi daran Haiti because Haiti dadka loo diray waa yiriin marka waa the most deadliest peacekeeping mission
in the entire world marka waxaan isleeyahay kulley Soomaaliya waa ka faa'iideysay qaab diblomaasiyadeed inkastoo dadka qaarkii oo uu ka mid yahay Farax Macalin xilliwaadka dhadhaab ay go'aan adag ma aragtay ka qaateen dadka qaarkii go'aan saas oo adag ma qaadan karaan qaab diblomaasiyadeed iyo sabab badan oo lagu xalliyo ayaa jira annagaba Soomaalida NFT masirka yagi markii loo dhiibay Kenya nalama tashanay 1962 doorashadii dalkan ka dhacday anaga kamaanan ahayn kaadu kamaanan ahayn kanu kamaanan ahayn KPA kamaanan ahayn xisbigii Kamba Association anaga xisbaan wanahay Northern People's Progressive People's Party ururkayguna waa kii maaragtay go'aankii dadka iyagana ay ku raaceen oo 1962 aftidii wadanka laga qabtay ay aanu ku rabnay inaan ku biirno Soomaaliya waagii xoogsaneyd shanta Soomaaliyeed iyo jiritaanka Soomaaliyeed ka hor inta aanan la qeexin laguna heshiinin in la aqbalo xuduudihii guumaystihu inuu dhaafay maadaama aanan la xallin karin hadii la yiraahdo arrimaha xuduudaha la xalinayaan weli khilaafo weyn baa Afrika ka dhacaya marka masirka iyaga walow aanan anaga nagala tashanin doorashadii waanu diidnay doorashadii aftidan ayaa ku guuleysanay 1962 doorasho aanan maaragtay saa ahayn baa ka dhacday kulli waan godogood baanu sameynaa ka qaybgalno laakiin waxba wax weyn ma soo kordhin waa sidii Raila markuu diiday inuu ka qayb qaato doorashadii ku celiska ahayd marka 1967 markii Arusha Declaration-kii masirkaygii ay dabadii dawladood heshiiyeen halkaas aan anagu ku baxnay waxa arkaysana wali inkastoo wali ma generalize-nahay maanta 2024 ay dawladda William Ruto wasiirada goobaha ay tageen ay ugu yartahay gobolka waqooyi bari waliba maanta waxa arkayso waan dad horumarnay ayaanu nahay marka qalaaso badan buu keeni karaa سياسة ديسي بسبب أبي أحمد iyo Somaliland لكن dadka Somaliland قد يهان ودت maaragtay ka go'an tahay in qaabka noqoto siyaasad ahaan lagu xallin karaa si ama i'tiraaf ay ku hesho ama ay ku hesho autonomia oo ka yara awood badan dawladaha federaalka ah aanana gaarsiisnayna dawlad buuxda marka waxaan u maleynayaa halkaas inay gaari doonto laakiin haddii ayba dhacdo in si noqotada Ethiopia iyo Xabashiyada Somaliland yimaadaan gaar ahaan areada Bulxaar iyo dadka saylac kaliya ay eegaan Bulxaar bila raahdo jirta oo ka qadiimisan saylac oo iyadana port ahayd oo meelii waxay laga dhoofin jiray dadka midowga ahayd slave trade-ka waagii slave trade-ka port-yaasha laga ay kamid ahayd marka deegaanku waa badan yahay oo isku dhow yihiin laakiin hadday dhacdo in Xabashida la areada soo aadaan halis weyn ay u gelin kartaa qalqalka Yeemanka geeska Afrika waliba waxa cusubnaday in dhawaan maaragtay ururka argixisada al-shabaab inay lagu eedanayo inay faldambiyad weerar ka geysteen balad xaawo oo dad Ethiopiana la beegsaday marka dad badan baa ka faa'iideysan kara qaarkood oo isticmaali kara cadayn dad badan baa lagu radicalize kareyn karaa marka waxaan isleeyahay dhibaatada ay keenaysa ayaa ka badan faa'iidada i'tiraafka oo hal wadan laga heli karo Soomaalidana waxay tiraahdaa war jiro cakaaruhu imaan doona marka waanu ka warsugeena